ما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال. waxaynu ka bilaabaynaa dariska ayada 4 kamida suuratul maa'ida. suuratul maa'ida waxaynu ku jirnay aayadihii ummadda u tilmaamayay xalaasha iyo xaraamta u kala xusayay. markaynu soo aragnay ummadihii naga horeeyay sida ilaahay ugu qiimeeyay sharcigii uu u soo dajiyay iyo waxay ka yeeleen. yaa ayuha aladiina aamanuu dadkii ilaahay rumeeyow layabluwannakum allah ilaahay waxa uu idinku imtixaanaya oo uu idinku jirabi doonaa bishayn shay qayb min ashay ugaadha wax ka mida. ugaadhii baa ilaahay idinku imtixaanaya ugaadhaasoo tanaaluhu aydiikum gacmihiinnu ay gaadhayso oo qaban kartaan, wa rimaaxukum warmihiinnuna ay gaadhayaan oo qaarna waranka ku dili kartaan iyo hubka. bal inay iska daysaan iyo in kalea ilaahay u eegaya. liyaclama allaahu si uu ilaahay ogaado man yakhaafuhu cidda ka cabsanaysa bilghayb iyadoo ilaahay aanu arkayn. faman ictadaa qofka xadgudba bacda dalik intii laga xaaraantinimeeye kadib falahu cadaabun aliim cadaab kulul buu leeyahy. ugaadhiiba haddaba ilaahay uu ka hadlay siduu dadka ugu imtixaanayo. markaa rabbi waxa uu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu dadkii ilaahay rumeeye mu'miniintahayow laa taqtulu shayd ugaadha ha dilina wa antum xurum idinkoo camal xidhan xaj iyo cumro. waman qatalahu minkum qofka idinka mida ugaadha dila mutacamidan isagoo u kasaya fa jazaaun ay fa calayhi jazaa dushiisa waxa ah wax lagu abaalmarinayo wuxuu dilay leeg. jazaagaasoo milu maa qatala min anacam nicmoolayda kii uu dilay ugaadhii uu dilay nicmoolay leeg ayaa ku waajibaysa. yaxkumu bihi waxaa xukumaya shayga jazaaga ah ee qofka lagu abaalmarinayo dawaa cadlin minkum laba caadiliin oo idinka mid ah ayaa go'aankiisa gaadhaya. halkee lagu gowracayaa hadyan baaliqa alkacba waa hadyi waajiba oo kacbada gaadhaya, kacbadaa la geynaya. aw kafaaratun ama kafaara gud baa waajibaya kaasoo dacaamu masaakiin wax la siiya ah. aw cadlu daalik ama wax u dhigma raashinka ah oo siyaaman soon u dhigma raashinka ah ayaa qofkii uu soomi doonaa. liyaduuqa waxaa loogu waajibiyey arrimaha kafaara gudka ah liyaduuqa wabaala amri si uu u dhadhamiyo cuquubata amri arrinka uu galay abaalmarintiisa. cafa allaahu camaa salaf wixii hore ilaahay waa idinka dhaafay. waman caada qofka u noqda isagoo muxrima ugaadhsada fayantaqimu allaahu minhu ilaahay wuu ka argudan. wallaahu casiizun ilaahayba awood leh oonay ciidina hor joogsanayn duntiqaam argoosina loo cidduu ka argoosanaya waa dhexjabaysa. waa axkaamtii xalaal iyo xaraamba lahayd ee ilaahay ummadda u jidaynayay isagaa waxna xalaaleeya waxna xaaraantinimeeya. marka halkan waxaa ilaahay u diiday qofkii camalka xidhnaa ee muxrimka ah hadduu xaj xidhan yahay iyo hadduu cumro xidhan yahayba inuu ugaadhsado waa loo diiday. ugaadhaasi ama ha ahaato ta xaramka ama ha ahaato ta xilliga. xilli waa meesha xaramka ka baxsan. ugaadha xaramka horeba usii mamnuuc bay ahayd, laakiin ugaadha qofkii loo diiday waa tii xaramkaba ka baxsanay tii xaramkana daaba. waxa aayaadka dambe aynu ku arki doonaa ugaadhaasi inay tahay qofka loo diiday tabariga ee aanay ahayn tabadda. aayadda 69aad ayaa ilaahay uu arrintaa kagala hadli doonaa. waaye waxa markaa qaybtani ay ka mid noqonaysaa waa maxduurun min maxduuraat alixraam. qofku markuu camalkan xidhan yahay xajka iyo cumrada waxyaabo loo diido ilaa 10 ku dhowaa jira. inuu madaxiisa iyo jidhkiisa timaha ka gooyo
inuu dhar tolan xidho udgoonkii inuu marsado dumar iyo arrimahood inuu galo oo wax mahariya waxaas inuu ugaadh dilo maxduuraatul ixraam ayay ku jirtaa tani aayaadkaasaa ilaahay uu kaga hadlay subxaana dhowrkee suuratulmaa'ida ku sugan si adagna wuu sheegay waa rixladda ama safarkaa uu ku jiraa waa rixlatu salaam fii baladi salaam fii waqti salaam waa waqti nabadgelyo iyo dal nabadgelyo iyo safar nabadgelyo waa inay ka nabadgalaan xayawaankani jaaniskaasaa ilahay uga faa'iideeyey wuu diiday soomaha qofku dad wixii loo diidunbaaba ugu darane ugaadhii buu dilay ugaadhaa uu dilay waxa ka waajibaya mid isaga leegoo nicmoolayda ah neefka waxaan ugaadha ah shaygan ugaadha ah uu dilay mid la-eg oo xoolaheenna ah ayaa qofkii lagu yeelanaya liyaduuqa wabaala amri tallaabadu qaaday ciqaabteedii si uu dhadhamiyo laxajeclaa ka haysee laxajecladiisii baa loo dhacaya marka waa jazaa baa ilaahay uu ku tilmaamay fa jazaaun jazaagaasi macnihiisu waxa weeyaan waa wax lagu abaalmarinayo oo nicmoolayda ka mida oo uu isagu bixinayo ka soo qaad wuxuu dilay geri ama gorayo neef geelaa loodhan bixi dameer dibadeed buu isku doontuu dilay neef lo ah deeruu gowracay u ugaadhsaday neef adhaya saasunbaa loo wadaya digirinkii meelahaa marayay dee digaag waxu dhigmo uun dee mid walba ilaa hadduu isku taabto dhalahan yaryara shimbiraha oo uu laayo isagana waxaa ku waajibaya uun neef qaadhka ku jiroo nayl yar ama waxar yaroo qaadhka ku jirta oon kuwan yaryareen ababina taasaa loo wadaya waa kaa ilaahay tilmaamayoo isagu iskama xukumanayo waxaanuu dilay waxa u dhigma iskama xukumanayo yaxkumu bihi dawaa cadlin minkum laba caadiliinahoo ummadda islaamka ka mida ayaa xukumaya waar kanaan dilaye bal labadiinnani hebel iyo hebelow go'aan ka gaadha wixii aan bixin lahaa marka waxay leeyihin waxa kugu waajibay waxaase bixi saasay arrinkiisu noqonaya halka lagu gowracayaana mar walba qofkii fidyooba ama gef ku dhaca ee waxay ka waajibaan kafaara gudiya hadii waa xaramka masaakiinta xaramka hadiyan baaliq alkacba kacbada la geynaya hadigu hadduu sunno yahay iyo hadduu waajib yahayba qofkii waxay ku waajibaan waxa la geeyaa uun maka iyo mashaacirta mina iyo musdalifa iyo eryada halkaasaa lagu soo gowracaya waa hadiyan baaliq alkacba haddaba qofku haddii uu doonana awdani waxay tusinaysaa bay leeyihiin culimadu takhyiire wuu kala dooranayaa ama wuxuu gowrici karaa neefka xoolaha hadduu doonana waa dacaamu masaakiin oo maalan gorayo hadduu dilay waxa la yidhi waxa kugu waajibay neefka geela qiimihiisoo raashina ayuu masaakiinta u qaybin doonaa neefka geela waa imisa waa $200 200 intee gadbadood bay goynayaan intaasoo gadbadood uu soo iibin doonaa kolkaasuu dabeedna u qaybin doonaa masaakiinta waa mid labaad khiyaar labaada uu leeyahay wey khiyaarka saddexaad waxa weeye cadlu daalika siyaaman raashinkaa wuxuu dhigmoo soona haddii uu kari waayo inuu neef xoolaa gowraco oo uu kari waayo raashinkii masaakiinta waxa saddexaada u furan inuu dee soomo sida salafku ay ku qiimeeyeen soomkii waxa weeyaan kolba waxa uu geystay raashin ma ahaan marka lagu qiimeeyo maxaanku idhaahdaa galaankiiba maalin buu ka soomi galaankiiba maalin buu ka soomi tein leeg bay noqonaysa te wax fara badan iminka marka la idhaa neefkii geela $200 ha lagu qiimeeyo oo raashin ha loo rogo gadbadiina kaba soo qaad inay $20 noqotay waa 10 gadbadood bay noqdeen 10kii gadbadood marka aad u rogto kiilooyo de gadbadiiba 50 kiilo bay hayde 50 ku sii dhufo 10 500 oo maalmood liyaduuqa wabaal amri baa dee daba taalla arrin adag weeye arrin cajiib weeye waxaana sahlanayn weeye
qaarkood waliba waxay ku qiimeeyaan inagu saac baynu ka soo qaadnay nisfu saac baynu ka soo qaadno laba mudahe mudbaabay qaarkood culimada xusaya liyaduuqa wabaala amrihi arrinkaa uu sameeyey cuqubadiisa si uu u dhadhamiyo jariimada uu galay baad halkaa ka arkaysa dadka qaarkood baa falkan hore ugu kacay intaan sharciga ilaahay soo rogin ama aan xukunkaa la jidaynin wixii ka horreeyey ma aha wax qofka lagala xisaabtamayo ilahay wuxuu uhi cafallaahu camaa salaf waman caada fayantaqimu allaahu minh wax waliba oo caynkaa xukun wal intii ka horraysay intaan loo diidin qofkaa hadduu sameeyey looma haysto laakiin qofka ku noqda ee isaga oo waxaasi xaaraan uu yahay ogsoona dib ugu noqda kaasaa ilahay uu ka argoosanaya wallahu casiizun duntiqaam masaa'il badan baa dabcan fuqahadu baxi bay ka sameeyaan aayaadka haddaynu dib ugu yara noqonno yaa ayuha aladiina aamanuu layabluwannakum allahu bishayin min ashayd waxa ilahay idinku imtixaanayaa wax ugaadha ka mid a sida loogu imtixaanayaa waxa weeye tanaaluhu aydiikum wa rimaaxukum gacmihiinna iyo warmihiinnaa gaadhaya ugaadha qaarkeed marka la eryado waa la soo qaban karaa qaarkeed dee waxaabay iska saaran tahay dhirta oo sida xamaamkiiyo wixii la mida waa la soo qaban karaa gacmaha lagu gaadhaya qaarna dee hubkaaba lagu gaadhaya marka tanin waa la idinku imtixaanayaa waa sidii reer banu israa'iil loogu imtixaana layidhi kalluunka iska daaya kalluunka baalka la idhaahda iska daaya idinkuna saasoo kalaa laydin leeya ugaadha wakhtigaa ka hadhay iska daaya waxaa culimmadu ay xusaan maalan haddii la yidhi ha ugaadhsanina maxaa ugaadh noqon karaa a'immada qaarkood waxay leeyihiin dee waa wixii la cuno waxa ugaadh lagu sheegaa wixii la cuno ee la intifaacsado sida kuwa aynu tusaalaha u soo qaadanayni garanuugtii iyo cawshii iyo deeradii iyo baciidkii iyo baashi gorayadii iyo geri waxyaabaha wey ee wixii laakiin bahala ee wax cuna sida harimacadkii iyo guduudanihii iyo libaaxii iyo waxaas kuma jiraan laakiin jumhuurtu waxay u badan yihiin in mid la cuno iyo mid aan la cuninba ma'kuul wa hayru ma'kuul la isku wada darayo oo kii la cunayay hilibkiisa iyo kii aan la cunaynba hadduu qofku dilo wuxuuna ku waajibaya jazaagan ayuunbaa lagu yeelanayaa yaxkumu bihi dawaa cadli minkum waxa labaadoo ay isweydiiyaan labadan qof ee ilaahay uhi ha xukumeen ma ku jiri karaa kii dilay maya bay u badan yihin way dhacday qisooyinka qaarkood in kii dilay iyo nin kale la yidhi xukuma laakiin abubakar sidiiq mar nin reer miyi u yimid oo uu yidhi waxaad ka warrantaa dee bahal noocaasa baan dilay maxaa igu waajibaya ayaa abubakar radia allaahu canhuma ubay ibnu kacb oo ag fadhiyay buu war ubay ibnu kacbiow maxay kula tahay ninkani bahalkaasuu dileeye maxaynu ku xukunnaa maxaa ku waajibaya kula tahay macnaa ugaadhun baan dilay buuhin waanu u tilmaamay maxaa dee igu waajibaya ubay buu markaa sii weydiiyey ninkii reer miyiga ahaa waa kii lahaa adigoo madaxweynihii muslimiinta abaanu ku weydiinay adna nin baad sii weydiinaysa xaggee loo kacayaa marka haddaad adiga cid warwaraysanayso marka abubakar kumuu xanaaqine wuxuu yidhi waxa aan kuu sheegaya aayaddan u akhriyay marka fajazaaun milu maa qatala min annacam yaxkumu bihi dawaa cadlin minkum war ilaahay baa wuxuu yidhi labaa xukumaya marka keligay baanan ku fillayne waan kuu jawaabi uun lahaaye dee arrintaa arrin diina in nin labaad la qaato oo go'aanka ila gaadha waa aayad waad ka yara dhacsantahay wey reer miyigaagani marka si wanaagsan buu u qanciyey ninkiina markaa waa ku qancay marka kan dhibka geystay laba aan ahayn weeye fuqahada qaarkood baa qaba in isaga iyo nin kale ay tahay laakiin sida wanaagsani waa sidaa wey taasaa ilaahay uu tilmaamay subxaana fajazaaun milu maa qatala waa tanwiinsan tahay quraada qaarkood hadday idaafeeyaan fajazaau mili maa qatala min annacam laakiin iminka waa inay maaragtay munakar tahay gaar u taagan facalayhi jazaa wuxuu geystay wixii uu dilay wax la eg oo nicmoolayda ah ayaa ku waajibaya nicmoolayda ilaahay uu tilmaamay uxilla lakum waxa la idiin xalaayeeyba ilaahay uu xalaal la idinka dhigay saydul bahr ugaadha badda iyo wadacaamuhu bakhtigiisuna waa idiin xalaal
badda wixii ku bakhtiyaana waa xalaal mataacan lakum idinka raaxa idinta nicma idinta walisayaara iyo dadka socdaalka ah musaafiriinta iyo dadka nagaadiga ah labadaba mataacba idinta waa waxa intifaacsan kartaan waxurima calaykum waxa la idinka xaaraantinimeeyo ilaahay xaaraanta sheegi jira oo idinka xaaraantinimeeyo shaydul bar ugaadha beriga waa goorma maa dumtum xuruman inta aa camal xidhantihiin xaj iyo cumro inta aa xidhantihiin ugaadha berigu waa mamnuuc wattaquu allah ilaahay ka cabsada alladii ilayhi tuxsharuun ilaahaasoo qiyaamaha hortiisa la idin keenayo jacala allaahu ilaahay waxa uu ka dhigay alkacbata albayt alxaraama kacbada baytka xaramka waxa uu ka dhigay qiyaaman linnaas mid dadka arrimahoodu ku hagaagaan washahra alxaraam bilaha xurmada lana mid arrinkoodu dadka uu ku hagaago ayaa ilaahay uu ka dhigay walhadya walqalaa'id hadyiga iyo la gowracayo xaramka lagu gowracayo iyo qalaa'idoo hadyiga kiisa calaamadsana iyagana mid arrinka dadku uu ku hagaago adduun iyo aakhiraba ayaa ilaahay uu ka dhigay daalika arrinkaasaa ilaahay idiin jideeyey litaclamuu si aa ogaataan ana allaha yaclam ilaahay inuu ogaanayo maa fi samaawaati wamaa fi lard ceriyo dhulba waxa ku jira waa ogi wa ana allaha bikulli shayin caliim ilaahay baa wax walba ogsoon marka axkaamtiisa iyo sharcigiisu cilmi buu ku salaysan yihin iclamuu ogaada ana allaha shadiidu lciqaab ilaahay inay ciqaabtiisu darantay wa ana allaha qafuurun raxiim ilaahay dembigana waa dhaafaa waa naxariista maa cala arasuuli ila albalaaq rasuulka dushiisa may ahaanin inuu dadka gaadhsiiyuunbaa saaran ammaanadan wallaahu yaclam ilaahay wuu ogaanayaa aad buu ula socdaa ka warhayaa maa tubduuna waxa muujisanaysaan wamaa taktumuun iyo waxa qarsanaysaana idinku liqaansan intaba u ogsoonyihin dhowrkan aayadood waxaa ilaahay uu sii xusayaa cibaadaadkii iyo muqadasaadkii lagu samaynayay cibaadadan marka uu ku dhex jiro camalkan xajka iyo cumrada qofka wixii u xalaalaya wixii ka xaraama iyo goobaha muqadasaadka iyo fadliga ummadda ugu jira dhowr jeer baa ilaahay uu soo celinaya cilmigiisa ilaahay uu soo celin litaclamuu ana allaha yaclam bikulli shayin caliim wallaahu yaclamu maa tubduun wamaa taktumuun macnaha cilmiga ilaahay wuu ogi macnaha arrintaasi waxay u dhigan tahay inaad is-ilaaliso in aad is-ilaaliso aad ogaato haddii ay tahay inuun cid xaggeeda iska eegto ama aad iska dhisto ilaahay xaggiisa weeye subxaana ilaahay ayaad iska eegaysa talo haddaad shaygaa xalaasha shaygaa xaaraanta haddaad la timaado sow ilaahay ku arki maayo qofku marka dareenka noocaasi uu ku jiro markaasaanay u sahlanaanaynin xaaraanta falideedu macnaha wuxuu ogaanayaa ilaah raqiiba oo riqaaba iyo eegid ku haya oo raadaarkiisa uu dul taaganya inuu jiro qofka muuminka ahay waa ta uu la dheeriya cid walba axkaamta fulinteeda arrintaasa asal u ah wixii farala marka qofka naftiisu ay yaro caajisto ama ay yaro meeraysato wuxuu leeyahay dee xishoodkii baa galaya wuxuu leeyahay sow ilaahay ku arki maayo haddaad ka tegayso xaaraantii sow ilaahay ku arki maayo saasuu leeyahay saasuu fikrayaa qof waaya wuu kala qaaday ilaahay arrinkii ugaadha waxa ilaahay uu waxa xalaalaydiina ugaadha badda iyo bakhtigeedaba tu nool iyo tu bakhtiday labaduba dadka deegaanka ah iyo dadka sayaarada ee socdaalka ah ee safarka ah labadaba mataac bay u tahay mataacdu waa maxay waa wax intifaacsadaan kuna raaxaystaan oo anfac u ah anfaca intifaacsataana ku dheefidiina weeyi dadka deegaanka iyo dadka musaafiriinta aba marka ayaddu waxay xalaalaysay qofku haba ahaado xaj iyo cumraba ha xidhnaadee haddii uu maalan badda marayo oo maraakiibtii iyo doonyihii iyo badda dhexdeeda muddo ku jirayo inuu iska intifaacsan karo badda ugaadha ku sugan oo aanay iyadu xalaal ahayn ilaahay saasuu uga soo reebay taas guud ahaanbana waxaa labaada nasku uu xalaalaynayaa bakhtiga ugaadha bakhtida ee badda ku jirta inay iska birsaluun tahay
mas'alad fiqi oo u baahan inuu aqoon leeyahay qofku aqoon u leeyahay dadkan had iyo jeer marka dibadaha la joogo ayaa waxa lagu dul qoraa wixii hilibaha la gowraco xalaal baa lagu dul qoraa xalaal macnaheedu waxay uga jeedaan dadka soo farsameeyay gowrac sharci uu soo maray marka qaar kood baa kalluunkiina waxay ku soo dul qoreen xalaal macnaheedu waxay uga jeedaan si wanaagsan baa loo soo gowracay baalkana gowracba uma baahna marka waxa la garan karaa in malaa ama aanay aqoon lahayn ama ay isku wada darayaan haday doonaan marka taasina waa mid aad iyo aad muhiim u ah inuu qofku ogaado waaya daliilo badan baa tilmaamaya in badda waxa ku jiro dhammo xalaal yahay xataa bakhtigeedana ku daro wax laga soo culimada qaar kood baa waxay ka soo reebaan raha iyo doofaarka badda iyo ayga badda iyo kuweelahaas ay ka soo reebaan laakiin marka adilada la eego ugaadhii badda oo dhammi waa inay israacsantay oo xalaalaytay waxa u daliila xadiidka rasuulka sala allahu calayhi wasalam marka laga hadlayo bakhtiga gaar ahaan bakhtigii gaar ahaan huwa dahuuru maauhu alxillu maytatu waxaa la weydiiyey nabiga biyaha badda biyihiisuna waa daahir bakhtigiisuna waa xalaal buu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam waxaa kaluu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam laba bakhti baa noo xalaalahoo xuudka waa kalluunkii ilaa nibirigii isku wada dar waxaa waaweyne badda laga intifaacsanaya iyo ayax labadaasiba markay bakhtiyaan xalaal bay noo yihin bakhtigooda xalaal buu noo yihin xadiid saxiixu muslim ku sugan baa jira isaguna aad u sii caddaynaya jaabir ibnu cabdilaahi baa warinaya wuxuu nabigu diray calayhi salaatu wasalaam col 300 duulimaad bay galeen waxaa ka madax ahaa asxaabigii mujaahidkii weynaa abu cubaydata bnu ljaraax meel dhexe markay marayaan baa safarkii sahaydiisii ay yaraatay ama ciidanka saadkiisii iyo sahaydii baa yaraaday ilaa ma ahayn dad cunno ku fikiraya ama wax cun u nool ma ahayne wax badanoo ay xaqiijinayeen baa ilowsiinaya waxay cunayaanba asxaabigii ula hadla wuxuu war waxa haysaan bal isku soo ururiya ninba wixii ugu jiray sahaydiisii buu soo ururiyay oo la isu keeno waa la yar qaybsanaya kolba markii dambe asxaabigii ka warramaya waxa uu jaabir ibn cabdilaahi waxa nagu soo hagaagay maalmihii u dambeeyay sahaydu sii gooday midmid timira garaamka la siisiinaya wuxuu noqday midmid timira qolihii barigii dambe ka wareysanayay uu sii warramayay baa ninkii weydiinaya wuxuu oo muxuu mid timir idinka tari jiray wallahi markaanu weynay ayaabay noogu darayd buuri midkaa waxaanu fahamnay buuri wuxuu noo tarayay markaanu isagiina weynay laanna intaanu muudmuudsanaanu biyaha ku cabi jirnay wabaxkadka ma taqaana waanu ku wabaxgadaynay buuri macnaha haddii aad wax yaroo kooban cunto ama dhanaan isticmaasho biyihii way si unbay kuu marayaan aad u cabi karaysa arintaasaaba wabaxkad buu noo habi laakiin markaanu weynay ayaan biyina cabi kari weynay iyagoo xaaladaa ku sugan ayaa waxay ku soo baxeen nibiri weyn oo baddu soo tuftay oo bakhti ah oo sida tuurta oo kale ama buur yar oo kale ah abu cubayda wuu dadaalayoo waxa uu yidhi isagoo isqancinaya naxnu rusulu rasuulillaah waqad udirtum fakuluuh waa rasuulkii ilaahay cidduu soo diray baynu nahay col ilaahay daraaddii u socdaynu nahay ma habboona in gaajo lagu dilo warwaar saaqad ilaahay cuna fiqi buu sameeyey uu ijtihaaday isagoo markaa aanay sooba gaadhin bakhtiga baddu inuu xalaal yahay wuxuu ku xisaabtamay qofka gaajaysan inuu bakhtigu xalaal u ahaa aayaddu taasay tilmaamaysa qaacidada caamkaa buu qaatay baalkii isaga ahaa waxay leeyihiin asxaabtu 300 bil baanu intifaacsanaynay weynaantiisii bay ka warrameen asxaabtu isagoo doonaya inuu sawir ka qaado iyo tilmaan sawirkii kabaradda mid noociisii oo kale ah oo iska faraysamaysanoo dabiici uu ka qaadayoo wuxuu isu keenay 13 nin markaasuu yidhi ishiisa gala
godkii isha ayuu yidhi gala 13 godkii baa qaaday maxaa dee bahalkan weynaantiisa aad arkaysa goofkii isha qolfoofkiisa ayay 3 nin fadhiisteen 13 nin ayaa fadhiistay dee waa masaafadu weyn waxa la odhan karaa dee malaha 3 mitir oo isku weera ama 4 mitir oo isku weera ayay fadhiisan karaan 13 nin kada loobsan karaan tusaale kale haddana sameeyay wuxuu yiri feerihiisa laba kamida qotomiyo iska horgeeya sida dhigaha dhaadheer la isaga horgeeyo kale marka intii labadii la qotomiya la iska horgeeyay awr buu rarayo markaasuu hoos mariyay awr kabaaladiisii wixii lagu rarayo dabeedna saa loo socodsiiyay dee wuxuu hoos mari karaya waa inuu ilaa isaguna haygiisu 5 mitir kor yahay kataa wuxuu ku tilmaamaya weynaantiisu doonayaan adigu almuhim hilibkii waa la intifaacsaday waxa ay ka samaysteen watazawadna min lahmi washaa'iqna waanu ka qaadanay areerin qaybtan dhaadheer hilibka jiirka la dhaadheereeyay marka dambe la doonayay la googooyay areerinkaana waanu ka samaysanay iyadoo la yar shakisan yahay nabiga loo tagay calayhi salaatu wasalaam warkii bay siiyeen wuxuu nabigu ugu jawaabay huwa rizqun akhrajahu Allahu lakum hal ma'akum min lahmihi shay'un fatut'imuna warwa arsaaqadi ilaahaydi siiyo xalaala hilibkiisii wax miyaa ka haysaan si ciyi noo siisaan bal annagana wax naga siiseena wax ma haysaan haaba yiraahdeen nabigana waxba ka siiyeen calayhi salaatu wasalaam waa xadiid saxiix oo tilmaamaya baqtigii badu in uu yahay xalaal waa deeqda ilaahay ummadan uu siiyay mataacba oo ku tilmaamay allahumma illa aymadu qaarkood waxay tilmaamayaan haddii caafimaad ahaan dee wax mudhuudhuqay oo kala siibtay oo caafimaad ahaan dhibaato keenaya taasunbaa loo dayn karaa oo dee ilaahay baa walaa taqtuluu anfusakum in allaha kaana bikum raxiiman wixii dhib keenaya mooyaane wixii kale waa la cunaya uxilla lakum saydu lbaxri wa طacaamuhu mataacan lakum walisayaara وحرم عليكم سيد البر ما دمتم حرما انت محرمين تهين لكن مركو قفكي حلالوه وقاعد يبرهقوا ده حلال بأوطه واتقوا الله الذي إليه تحشرون هل كاهروين صعد أفناء وقاعدني قورتا قفكو lagu yeelanayo jazaagu waxa uu ahaa marka uu kaso aayada baad ka fahmaysaa waman qatalahu minkum mutaammidan qofka kas u dilay laakiin haduu kama u dilo ama rasaastu ay kaga dhacdo isaga jazaagii lagu maleh uu iskaga tagiun ma intifaacsanayo ma cunaye abaalmarintii jazaagiina lagu maleh masalada waxaad moodaa Ahmed ibn Hanbal ayaa ku taagan in qofku marka uu kasu dilo aan lagu yeelanayn laakiin jumhuurtu waa qaban xataa haduu kasu dilo in sidii kama ay noqonayso kamiya kaski isku mid yihiin waxa kale oo iyadana nusuusta ay kala saaraysa xadiis rasuulka sallallahu alayhi wasallam qofkii muhrim baha ahaado laakiin haddii cid kale ay soo ugaadho oo ugaadhi soo qabsato xalaala cid xalaala waa soo qabsatay qofkan muhrimka ana umay soo ugaadhin uu iska cuni karaa haddii laakiin qofkii xalaasha ahaa ee aan xaj iyo cumro xidhnayn ee ugaadha soo qabanayay qofkan muhrimka daraadii uu soo qabto inuu cunaa xaraam weeye taana xadiidka saxiixa nabiga kala farqiyay laba xadiis baa ayaa sugan mid waxa warinaya as-Sa'b ibn Jathama midna Abu Qatada Sa'b ibn Jathama hadiyad buu nabiga u keenay bahalkan dibadeedka la ilaado ayuu soo dilo nabiga u keenay calayhi salaatu wasalaam hilibkiisi nabigu waa diiday wuxuu yiri muhrimiin baa neer raalahaw Abu Qatada ayaa isagoo xalaal isna soo dilay uu keenay rasuulka sallallahu alayhi wasallam asxaabtii buu weydiiyay waxa uu yiri miyaa la qabateen bahalka maya miyaa u ishaarteen oo bahalka soo diltiraahdeen maya haddaba iska cuna fakuluhu nabiguna waxbu ka cunay calayhi salaatu wasalaam marka labada qiso waxa lagu jamcinayaa haddii qofkan muhrimka loogu talagalo loo soo dilayna ma cunayo haddii aan loo soo dilina waxbu ka cuni karaya faa'iidada wahadigan ilaahi iyo faa'iidada muqaddasaadku ummadda ay u leeyihiin adduuniya aakhirada إلهي بحسي جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد
saddex magac oo kacbadu ay leedahay ilaahay isku xidhiidhiyey haddii lagu su'aalo saddex magac oo beydka ilaahay uu leeyahay qur-aanka isku xigaa waa halkee waa suuratulmaa'ida aayadda 97 albayt alkacba albayt alxaraam saddexdiiba isku xidhiidhsan yihiin kacbada beydka xurmada leh qiyaam baa ilaahay dadka uga dhigay qiyaam mid arrimahoodu ay ku hagaagayaan arrinkoodu uu ku tiirsan yahay adduun iyo aakhiraba waxaa kaaga filanba gaalada laftigoodii waa majeeranaya oo taa dareemaya nin gaalada ka mid abaa wuxuu lahaa war inta ay qibladaa ku midaysayiin muslimiintu ee ama ay u soo tukanayaan ama ay u soo xajayaan qur-aankana ay ku midaysan yihiinoo kitaabo kala duwan oo faraarale sideenna aanay lahayn nimankaa cidi kala furfuri kari mayso nimankaa laga adkaan maayo intay isku qur-aanna yihiin isku qiblana yihiin buu lahaa waxa u soo raacaya uu nabigana inuu ku daraanfilaya calayhi salaatu wasalaam iyo nebi maxamed qibladooda iyo qur-aankooda iyo rasuulkooda saddexdaasaa midaysan intay saddexdaasi midaysan yihiin waxbayna dheer yihiinoo ma socon karayso in aynu nimankaa sidaynu doonayno u fulino berigii dhaweyto markii laga dumiyey qolyaha gaalada daarihii ayaa kuwa nin caskari ahoo sarkaal saro ahaa aduu jenaraal iyo wax ku dhow maraykanku ka mid ahaa waxa uu lahaa wallaahi nimankaa si kale kaga aarsan kari mayno meeshaa yaray ku ururaan ilaa aynu bam ku dhufanno malaakada hawaawigooda halkuu gaadhsiisan yahay haddaad u haysata inay qudus oo qura ku eegaanayaan maalinba waranka sida la isu sii gelinayo waxaan la filayn baa ka soo bixi karaa nimankan kaabayga dariiqadiisa u soconaya oo maynu halkaaba ku dhufanna buu kala yaaceen marka waxaad arkaysaa qiyaamkan ilaahay uu sheegay sida ummadaha shisheeye ay u dareemayaan mid kale wuxuu TV-ga ka eegay iyadoo xajkii la joogo oo 2 milyan xaramka ay ku tukanayaan oo marka imaamku Allahu akbar uu mar ay wada rukuucayaan mar ay soo wada toosayaan oo dadkaasi wax kala hadhaya iyo wax kala midhiiqinaya wax hareeraha eegaya siday iyagu noqon lahaayeen aan lahayn intuu madaxa ruuxay buu nimankani si wanaagsan bay u tababaran yihiin wuxuu qaatay askar la hogaaminayo oo objecdi la ciyaarsiinayo markaas wuxuu si wanaagsan bay u tababaran yihiin laana kor iyo hoos afarta daabiqa ay ku tukanayaan mar kale ay wada rukuucayaan ay actionka ficilka wada sameynayaan marka qiyaam linaas waa meel ummadda islaamka marka taariikhda loo noqdo kolka ay khalkhal ka gasho xajkooda iyo umradooda ama burcadii iyo jidgooyadii iyo dhibaatooyinkii dadka muslimiinta bariya dhaxa haysan jiray cibaadada xajkuba ay baabi'i jirtay baahayd cibaadada xajkuba khatar ay gali jirtay marka inta dadka muslimiinta arrimahoodu ay ku tiirsan yihiin diin iyo dunyaba halkaa wax weyn weeyo dabcan shirweynibaabay ku qabsanayaan sanad walba dadka muslimiinta shirweyne caalami ahoo ilaahay ajantihiisa iyo erayadiisaba u dejiya ummadda islaamka oo ay ku dhawaaqayaan ay fulinayaan ayaa halkaa ay ku fulinayaan sanad walba qiyaaman linnaas bilaha xurmadanina waa saasoo kale hadigiina waa saasoo kale qalaayidda hore aynu soo tilmaanay inuu yahay hadiga calaamadsan oo iyaga laftigooda xaramka markuu qofku joogo waa la nabadgelinayaa marka uu hadiga wado isaga iyo hadigiisaba waa la nabadgelinayaa qof muxrimo camal u socda loo arkaya un dagaal u soconin marka uu bilaha xurmada leh ku jiro nabadgelya ayuu helayaa marka anfici adduunyo iyo kii aakhira labadaba qiyaaman linnaas si aad ogaataan inuu ilaahay ogiyo ciriyo dhul waxa ku sugan ilaahay baa wax walba ogsoon naska waxa aad ka fahmaysaa sharciga ilaahay ummadda uu dejinaya waa sharci ku salaysan cilmi buu ku salaysan yahay xigmad buu ku salaysan yahay waxa uu ku salaysan yahay naxariis aayaadka u fiirso bikulli shay'in caliim wa anna allaha ghafuurur rahiim macnaha naxariis ilaahay baa sharcigan ku salaysan cilmi buu ku salaysan xikmad buu ku salaysan alaa ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiiful khabiir halka laga yaabo shuruucda dadku ay dejistaan iyagoo ay qortaan inuu deegaan gaar ah iyo rabitaan gaar ah iyo ummad gaar ah uu ku kooban yahay dabeetana markaas xoogaa sanada alla socdo ayaa la odhanayaa war sharcigan ina wadi maaye baarlamanku ha u codeeyo ama lifaaq ha loo sameeyo ama ha laynaga bedelo ilaa wuu silanaado 50 sano ka hor ama 30 sano ka hor baa sharciga la dejiyay
wadciga iyo waaqiciba uu isbedelay waa waxaan cilmi iyo xikmad iyo naxariis doona ku salaysnayn ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون آيات وحي شيغيسا النبي محمد عليه الصلاة والسلام أمانة مرهتو مدى سوغار سيي وسيدي محمد بن شهاب الزهري ولا من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم إلى هاي الرسالة دي واكامة رسولكنا البلاغي واغار سيي وعلينا التسليم إننا وحي إننا قد بنينا يسديبنا marka aayada ilaahay waxa ku tilmaamaya isagu waa kana waxyigi uu keenay wama ala rasuul illa al balaag ma ala rasuul illa al balaag rasuulkiina dadkii soo gaarsi wa alayna tasliim sida xikmadda uu sheegay taabiciga jaliilka inaguna inaynu hogaansano weeye laakiin nabi maxamed oo dadku maxay sharciga u raaci waayeen ilaahay taa ku qabsan maayo rasuulka sallallahu alayhi wasallam wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun wa nu'd marka la eego waciid hanjabaad bay noqonaysaa qofku wuxuu qarinaya wuxuu muujisanayaba wuu ogsoon yahay ka daacad iyo ka khaa'ina ka istuska iyo ka hagaagsanintaba ilaahay waa kala ogsoon marka sharcigu wuxuu u baahan yahay ikhlaas raacidda sidaa ugu baahan yahay haddana maadaama ilaahay arrin qarsoon iyo mid muuqata uu ka hadlay daacadnimona waa inay jirtaa diintoo la waafaqay iyo daacadnimo labadaasoo la isla akhriya camalkii taya u yeelaya قل waxaa tidhaa nabi maxamedow laa yastawi masina alkhabiisu shayga xaaraanta wadayibu iyo shayga xalaasha ahi masina walow acjabaka haba ku yaabgeliyo kasratu lkhabiis xaaraanta farabadnaanteedu fattaqu llah ilaahay ka cabsado ka xishooda yaa ulil albaab dadka aqoon-yahanka ahow lacallakum tuflixuun si aa u liibaantaan يا أيها الذين آمنوا تدك إلهي رميو لا تسألوا عن أشياء وحيابها وريسننا إن تبدأ لكم وحيابها سؤالنا شيئها سؤالها كيانين رسولك ويديننا إن تبدأ لكم هدي الله إذن موتيو تسؤكم إذن حمين إيسا وإن تسألوا عنها وحيابها فإذا كترين هدي ويديسان رسولك حين ينزل القرآن marka quraanka la soo dajinay quraankiina uu socdo tubda lakum tawalla idin muujin doona marka saydan ku farxi dooneen afallahu anha wixii hore ilaahay idin ka dhaaf wallahu ghafuurun haliim ilaahay baa dambiga dhaafo dulqaad leh qad sa'alaha qaumun qoliya weydiiyay su'aalaha aan faa'iidadu ku jirin rusushoodii bay weydiiyeen min qablikum idinka ka hor thumma asbahu dabeedna waxay noqdeen biha waxyaabihii looga jawaabay kaafiriina kuwa ka gaaloobay taas khatartaas soo bixi kartay bal feejignaada aayadda hore waxa ay gabagaba u tahay xalaashii ilaahay ummadda uu ku soo guubaabiyay iyo xaaraantii looga digay marka xalaasha sideeda ha loo qaato xaaraantana ha laga hadho xaaraantu waxa ku jira taswiil wax la yiraahdo qurxin shaydaan baa la socota qurxin shaydaan naftiina way jeceshahay shaydaankiina wuu qurxinaya waxa kale oo xaaraantu ay leedahay waa wax dadkii iimaanka lahaa ay ka tageenoo laga yaabo in dee uu yahay shay si dhib yar loo qaadan karo shay si dhib yar ama loo qaadan karo ama looga baac mushtarayn karo ama adduun badan laga heli karo lidalik baa qofka xaaraanta samaynaya xumaan labaad buu leeyahay oo inuu dadkiina ku dhiiri gelinayo hadduu xaaraanta ka sii baac mushtaraynayana xumaan saddexaad buu leeyahay oo ummadiibu ku abaabulaya oo kii samaynayay iyo kii ka tijaaraysanayay iyo kii kolkii hore iska daayay mid waliba sawka hebel ka dhargay sawka hebel ka lacagaystay sawka saasuu leeyahay halkay ka dhowdayba waa halkan baa marag qurxin noocaas oo shaydaanku oo qurxinayaa jirta marka khabiith magacaas waxa la baxaysa xaaraanta dayibna waa xalaash labadaas ma sina ilaahay agtiisa labadaa la isba barbar keeni karayo xaaraanta farabadnaanteedu haba ku yaab galiso oo dee xaaraantii waxaa laga yaabaa qofkii wax fara badan inuu si dhaqsaa u ururin karo ilaa shay minobali uu ku haysto weeyaanoo cidiba kula tartamayno muslinkii iska daayay imika kaydhaa xashiishadaan iibinaya iyo khamrigaan iibinaya dee tira intee leeg baa dadka iibinaysa dee waa tiro kooban baayac mushtarigii kale ilaa maal xalaalahoo
halkana buu ku tartamayaa oo sanaatin laga faa'iidaya ama laguba khasaaraya kanina keligii wax laga hadhay oo ilaahay daraadii looga hadhay iyo diin ahaan buu iska dulbaxayaa markaasuu dadkii lagu ibtileeyay ka iibinaya walaw acjabaka kathratul khabiir lacagta faraha badan uu leeyahay iyo tiradiisa badan hawa ka farxiso ha ku yaab galisee labadaas ilaahay agtiisa ma sinna ilaahay ka xishoodo ka cabsada buu ilaahay leeyahay ki aqli lahaw si ay u liibaantaan hadii kala aqlina ma jiro alla ka cabsina ma jiro liibaanina ma jirto intaasiba kanay ku xidhan laa yastawi al-khabiith wa tayyib labadaas ma sinna xagga cunnada marka la eego midna waa lagu barakoobaa midna waa lagu balaayoobaa xagga wax bixinta iyo infaaqana ma sinna oo midna ilaahay wuu aqbalaa midna wuu deerifeeyaa inna allaha tayyibun walaa yaqbalu ilaa tayyiban ilaahay wuu wanaagsan yahay waxaan xalaal ahayn oo wanaagsanayn ma aqbala buu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam laa yastawi al-khabiith wa tayyib qofka xun iyo qofka wanaagsan ma sinna idinka agtiisnana yaysinmin dadka xun iyo dadka wanaagsan kuwa xun haba fara badnaadeen haba xoolo badnaadeen ma sinna labadaasina ilaahay agtiisa macnaha shay baa lagu fasiraya shaygaasi wax la intifaacsada ahaado shakhsiyaad ha ahaado wixii xun iyo wixii wanaagsan ma sinna waa ka nabigu calayhi salaatu wasalaam ma qalla wa kafa khayrun mimma kathura wa alha wixii yar ee qofka ku filan ee qanciya ayaa ka khayr badan wixii mashquulinaya qofka ee haba fara badnaadeen qaliilun tuaddi shukra khayrun min kathiirin la tutiiqu wax yaroo mahadnaqiisa la timaadaaba ka fiican wax badan oo nadkarayno ku baleeya marka ilaahay ummadda maqaayiis buu siinaya miqyaas macnaha halbeeg ay wax ku sargooyaan ayaa uu siinayaa waxaan marka aad soo qaadanayso markaad intifaacsanayso markaad sadaqaysanayso waa inaad tidhaahdaa muxuu yahay talo hal huwa xaraam aw xalaal xalaal miyaa oo aad qaadato mise waa xaaraan oo aad iskaga tagto inaad halkaa ka bilowda wey xalaal iyo xaaraan marka la eegaya ama dayib iyo khabiith la eegayana waa sharciga lagu sargoynaya laakiin ma hadda aragtida dadka waayahay arrinta labaad ee halkan ilaahay uu diiday waxa weeye ummadda islaamka waxa ilaahay u diiday su-aasha aan faa'iida ku jirin inay weydiiyaan rasuulka culimada aqoon-yahanka dadka mas-uuliyiinta iyo madaxda ciddii wax laga qaadanayaba su-aal aan faa'iida ku jirin oo ama su-aal murana ama su-aal canaadnimo ah ama su-aal istusnimo iyo dhoolatusnimo ku jirto munaawaraad su-aalaha noocaasa mamnuuc weeye marka su-aasha halkan ilaahay uu diiday waa su-aal natiijadeedu aanay khayr ka dhalanayn laa tas'aluu can ashyaa in tubda lakum tasu'kum haddii la idiin muujiyo laydinka jawaabo way idin xumaynaysa haddii weydiisaan nebiga marka qur-aanku soo degayo dee waa la idiin muujin doonaa markaasaana idinka farxin doonin maalan rasuulku sala allahu calayhi wasalam maalin maalmaha ka mid ah ayaa ummaddu aad u wacdiyey wacdi qiiro badan geliyey low taclamuuna maa aclamu la daxiktum qaliilan wala bakaytum kaiiran waxaan ogahay ee aakhiro ku dambeeya haddaa ogaan lahaydeen in yarna waa qosli lahaydeen in badanna waa barooran lahaydeenoo waa ooyi lahaydeen marka asxaabtu madaxay wada foororiyeen walahum xaniin iyaga oo hiinfaadhilahoo markaasi u ilmaynaya halkaa xaaladda maraysa ayuumuu nim soo booday markaasuu buuhi ninkaasi waxa uu leeyahay man abi aniga yaa dhalay bal farqigaa eeg aabbahay waa kuma shoo la yar nuunayn jiray aabbihii dadku waa kuwa wuxuun istacniya marka nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ugu jawaabay jawaab in aabbihii kii la filaya inuu yahay laakiin daa dirqu ku baxsaday waa tii hooyadii lahayd war caaqabaad maxaa ku ogeysiiyey inuu aabba kale kugu sheegi lahaa oo hooyadaa halkaa way ku fadeexadoobi lahayd manaa hooyadaa umaad samafalin xadgudub baad samaysay nin kale ayaa waa soo booday oo waxau idhi su-aal mar kale ahayd ayna abi aabbahay waa allaystoo dhimaye ma naar buu ku jiraa mise janno dabeedna nebigu wuxuu idhi finnaar naartuu ku jiraa waaya su-aalaha waxaa ka mid ahaa
mid kale ayaa maaragtay qaala rajulun tadullu naaqat ayna naaqati hashaydii way baadiyaysatay dal xagee baa loogu hagaagaya subxaan allah mid kale ayaa nabigu intuu ummadda wacdiyey xajku ka hadlay wardada ilaahay xaj buu idinku leeyahay xaj buu idinku waajibiyey sidii nabigu saa waday inuu ma sanad walba hoogu soo suro uu inagu adkeeyay ma sanad walba nabigu calayhi salaatu wasalaam intuu aamusay ayuu cadhooday kadibna wuxuu yidhi ninkii su-aashay weydiinayay maya sanad walba maahee waa cumrigii mar haddaan haa odhan lahaa way waajibi lahay su-aashaadaa degdega ahayd jawaab degdega haddaan u dhiibi lahaa haa odhan lahaa way waajibi lahayd manaydaan karteen qaar baa cimrigii mar loogu taaglaaya xoolana haysta xajkiina u dhow yahay maxaad u malaynaysaa ka manaydaan kari karteen war idaaya intaan anugu idinka daynay buu nabigu calayhi salaatu wasalaam anaa idiin sheegay wixii ilaahay ii soo dhiibay marka halkaa waxa aad ka arkaysaa waa su-aashii aan faa'iida ku jirin weeye mar kale xadiid saxiixan wuxuu nabigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam daruunii maa taraktukum idaaya intaana waxba anugu idiin sheegin fa inamaa ahlaka man kaana qablakum karatu su'aalihim ummadii idinka horreeye waxaa halaagay su-aalahay ku badiyeen nebiyadii bay isku khilaafeen riwaayo kale waxaa in allaha tacaala farada faraa'ida falaa tudayicuuha waxadda xuduudan falaa tactaduuha waal ilaahay waxbuu idinku faral yeelaye oon idin soo gaadhsiiye ha dayicina xad buu dhigayoo xaaraan buu ayuu yidhi yaan loo dhowaanayna iska ilaaliya waxyaabuu idinka xaaraantinimeeye ha taabanina waxyaabuu ka aamusay isagoo idiin naxariisanaya oon ilowsanayne ha qodqodina oo ha fatashina waxaa kaloo rasuulku sala allahu calayhi wasalam ummadda uu leeyahy wakariha lakum qiila waqaala wakarata su'aal waidaacat almaal ilaahay wuxuu idinla karaahaysay dadyo qiila waqaala in shaqadiinnu noqoto waxaan xaqiiqo ahayn wuu yidhi baa la yidhi buu yidhi baa la yidhi qiila waa la yidhi qaala wuu yidhi marka wuxuu yidhi baa la yidhi intaasi ilaahay waa idiin diiday xaq waa dadkiiyo ku soconaya awhaam iyo khiyaali idaacat almaal iyo xoolaho la daadiya karata su'aal iyo su'aalaha aan faa'iida ku jirna badan waxaynu saa macnaha adiladaa u soo qaadanaynaa in qofku wixii uu garan waayo uu su'aalo dee qur-aan iyo xadiidba waa dhiirinayaan ee faa'iida macnaa istifsaar iyo isticlaam iyo istifhaam qofku wixii uu garan waayo faham iyo cilmi inuu iyo fasiraad u raadiyo dee ilaahay baa yidhi fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun xadiidkii xasankaana wuxuu alaa sa'alow inamaa shifaa'u lciyi su'aal may wax weydiiyaan cudurka jahliga dee caafimaadkiisu waa su-aasha wain tas'aluu canha xiina yunazalu lqur'aanu tubda lakum waa la idiin muujin doonaa marka la idiin muujiyana dee dadka qaarkood baanay ka farxin doona qad sa'alahaa qowmun min qablikum uma asbaxuu biha kaafiriin qaar baa intay weydiiyeen bay ka gaaloobeen reer banu israa'iil baa su'aalaha badin jirayoo marka looga jawaabay ka gaaloobi jireen su-aashii baqaraday badiyeenna ee suuratulbaqaraad ku soo martay albaqara midabkeedu waa maxay waa noocee ina albaqara tashaabaha calayna qisadaa waad soo arkaysa iyo su-aalaha waxaa ka dhashay marka su-aashu inay yeelato faa'iidadeeda iyo xikmaddeeda iyo munaasabadeeda aad bay maaragtay muhiimadu leedahay qofka su-aasha weydiinaya iyo qofka la weydiinaya labadaba mid walba adabiyaad buu leeyahay maa jacala allaahu ilaahay ma ogolaaninoo ma jidaynin min baxiiratin baxiirada waxaa la yidhaha walaa saa'ibana ilaahay ma ogola walaa wasiilatin wasiilana ilaahay ma jidaynin walaa xaamna ilaahay ma jidaynin tafsiirkoodu dib baynugu noqon walaakina aladiina kafaruu kuwii gaaloobay yaftaruuna cala allaahi alkadib ilaahay bay been ku abuuranayaanay ka sheegayaan wa akaruhum laa yacqiluun intooda badani caqli ma leh waidaa qiila lahu marka laydhaa gaalada tacaalow u kaalaya ilaa maa anzala allah ilaahay waxyigan uu soo dejiyey wa ila arasuul iyo rasuulkana u kaalayoo ka faa'iidaysta marka la yidhaahdo qaaluu waxay idhaahdaan diinlaawayaashu xasbunaa waxa nagu filanba annaga maa wajadnaa calayhi wixii aanu kula kulannay aabbaa'anaa aabbayaashayo wixii aanu ka dhaxallay dhaqankii iyo caadadiibaaba diin ahaan noogu filan alla wuxuu yidhi awalow kaana aabbaa'uhum ayatabicuuna aabbaa'ahum weeye aabbayaashood miyay iska dabagelayaan walow kaana aabbaa'uhum haddii aabbayaashood ay yihiin
laa yaclamuuna shay-an kuwa aan waxba garanaynin walaa yahtaduun oo aan hanuunsanayn iyaba waa yaab xalaasha iyo xaaraanta ilaahay uu ummadda u soo diiday wixii xaaraanta ahaa halkanna xalaashiioo qaar ay xaaraantinimeeyeen ayaa ilaahay halkan uu ka hadlayana xumaantay leedahay inay been abuurad iyo dembi iyo jariimad sidaa loo diiday xaaraanta in la xalaashado ayaa mar labaad loo diiday xalaasha in la xaaraantinimeeyo laakiin in ilaahay nicmadiisa laga guddoontaabay baxiirada iyo saa'ibada iyo wasiilada iyo xaamku waa xoolo nicmoolayda ka mid ah geel iyo adhiga oo ilaahay cadkoodii iyo caanahoodaba ummadda u xalaaleeyey oo nimankii sanamyaasha caabudi jiray carbeed ay iska xaaraantinimeeyeen cadkeedii iyo caanaheediiba magacyaashana ay u bixiyeen tafaasiir yaro kala duduwan iyo sharax kala duduwan baad ku arki tafaasiirta laakiin ibnu kaiirka haddii aynu kiisa qaadanno waxa uu leeyahay albaxiira allatii yumnacu daruha lidawaaqiit falaa yaxlubuha axadu min annaas baxiiradu waa qaalin ama dhowr jeer dhashay waa neef geelahoo irmaan oo la yidhi caanaheedu waxay waqaf u yihiin sanamka caanaheeda sanamkaasaa loo waqfoo cidima cabbi karayso ama waxaa cabbi karaya uun mid u soo hoyday sanamka oo marti iyo magan u ah ama kuwa sadanada la yidhaahdee yara burusheeya ee markaa ka agdhow sanamyaasha xokaymihiisiiya waxaa cid kale uma dhowaan karayso reerle iyo cid kale oo ag mari karaysa iyo mid raaca iyo mid ku caanahaasi halkaasi waqafka weyn saa'ibada saasuu bahalaad baxiirada asaa'iba kaanuu yusayibuunaha liaalihatihim laa yuxmalu calayha shay tanina waa neef geela saa'ibadu taa hore xagga caanaha la diiday tanna waxa weeyaan in la rartaa la diidaya saa'iba ila geelana waa la rartaa innagunbaan raranine xoogaa badownimaa baa ina haysee sida awrta loo rartuunbaa geelana digna loo rartaa adduunyadae oo loo maalaa caanihiisana dushiisana loo rartaa ilaa waa daabaddaa ilaahay laakiin ceeb bay u yaqaanaan dadkeennu in neef dhadig la raro marka saa'ibadii waxay leeyihiin iyada dusheeda waxba lama saari karo iyana sanamkay waqafut wasiiladii alwasiila annaaqatu lbikr tubakir fii awali nataaji libil uma tuhanii bacd biunthaa waa qaalin iyaduna dhashay oo tarmayso oo laba dhadiguun isku xidhiidhisa markaasay leeyiin war wuxuu wanaagsana laba dhadig bay isku xidhiidhisa sanamkay waqaf u tahay waaya walaa xaamkuna waa awrkii qoodha ahaa kol haddii uu 10 da-ood geela abaahiyo lagu daro waxay leeyihiin xamaa dahra xaamin xamaa dahra dhabarkiisii buu ilaaliyey wax lagu raranayaa ma jiro karbaash iyo qobtal iyo haantoona lama saarayo qofna ma fuuli karayo wuu iska xoroobay halkiisa ha daanshoodo aygiisa ha ku jira bay yidhaahdeen iyagunbaa ku rar waayey yaa laytahum waxay xoolaha intifaacsan lahaayeen caanahooda iyo cadkooda iyo rarkooda ayuunbay iska xarimeen waxba may soo kordhinin walaa xaam marka baxiiradii neef caanihiisa la diiday saa'ibadii iyaduna waa rarkiisaa la diiday iyo xaamka wasiiladuna iyadana cadkeediiyo caanaheedaba waa la mamnuucay oo waxa ay isku xidhiidhisay dhadig waliyaa qaarkoodoo si kale u sharxayana waad arki doonta oo xagga taranka mid 5 dhashay iyo mid 3 dhashay oo mid labu dhexaysiisay iyo xisaabo noocaas laakiin ta ugu basiidsan baa ayaynu ka soo qaadanay ugu sahlan wuxuunaad maqsuudka aad ka qaadanaysaa nicmo ilaahay ummaddan uu siiyey oo intuu shaydaan xidhxidhay uu ka xaaraantinimeeyey asalkeedabana diin la'aantu marmaroor fara badan bay leedahay iyo janjeedh ummadaha caalamka ku nool qolana dhankaasay uga dhaceen qolana dhanka kale uga dhaceen maalan qolyaha qaarkood nicmoolaydan xagga cunnada markay noqoto cunnada iyo wixii hilibnimo laga dayo wax wal oo ka soo horbaxaba way cunayaan hadduu jiir yahay iyo hadduu bisad yahay iyo haddii wax kasii yaryaroo xasharaadkaasa yahay ma dhaqaaqayaan unbay odhanayaanoo brotiin ma ka helaynaa dabeedna waa shuquuq waa la dubanayaa sida dadkaa indha yartu u badan yihin qolyaha qaarkoodna nicmoolaydii iyo ugaadhii iyo wixii ilaahay uu siiyey brotiinka ay ka heli lahaayeenba waxay ka doorteen caleen iyo doog iyo caws sidaa dee hindida in fara badanoo ka mid ah wixii la cuni lahaabaaba la caabudayaa
ama neefkii loodahay iyo neefkii xayawaankaabaaba la caabudayba dabeedna waxay leeyihin dee ma ilaah baynu hilibkiisa cuni karayna inaga joojiya waa kuwa dee fujta ibliiska iyo xaggaa iyaguna u baydhay baleeka dalabadaa qolo intay isu jiraan laakiin dadka muslimiinta waa ummad wasadahoo wixii xunna ilaahay uu ka xaaraantinimeeyo way ka joogsadeen wixii dayibaha wanaagsanna way intifaacsadeen sharcigoodu uu u xalaaleeyay waa wasatiyadii baa la doonaya ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون كما يدينين إلهي بافتراء كسميين إلهدين والدين وحني دين النبي إبراهيم بان صداق الحل نبينا مركا لقول هذا تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول إلهي الرسول كوكالايا قرآنك إلهي سودة شيء الرسول كوكالايا ووحي الراعة وحلاشي حرام تهلك كقات كلك الله إلهه قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آبانا جوابته ذو النوع حسبنا أي يكفينا ما وجدنا عليه آباءنا ما وجدنا آباءنا عليه بكرجنت وحي آنو هلاي آبايا شيء هايستا دينتين نوع ما أقوله قرآن كأني حديث كأن شيء قاو ممنوع دقن كنوع عاص بيجي مقالة متكستها لقوا هيه أنت ساكو يا جام بأورنا يان الدين عصب بعدين مكان تقول لك يا ساسان وضا يدي وذا يدي كوارك شرناه ما حي وحن براجت كانت أكايل هاو جوابيد أولو كان آباهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون قفكي عادة شدي هتان أدو جاهلها أن وحبك جرنين أن هنوصلين ميا لقوا راعيا ميا لقوا راعيا بيا ما يلقوا راعي ما يوي معناها وح مقدس كأه الراعي ده مضاني ودليلك هي دين أيام مقدس وقداسة عليه لكن قداسة يو معناها هفنان يو راعي واجب ما لها قف بني آدم ونهي رسولك صلى الله عليه وسلم رسول الله محمد أيوم بالقادنا يا قول كيس دي وحية يا قرآنك انت وحي كصهري هل كاس وحي سحنا ولا قادنا شرعي وافقسا وحي كلنا مايا لذلك بقى قواعد وحي كنت قاعدة الله إلى العادة محكمة عادة ولا تحق لنا ولا قول حساب تمايا قاعدة وحلا صعبة قيد أورانية إذا وافقت الشرع عرفك يعادد وحل الراعة مركو شرعي وافقه مركا أرنتا يان دليل كالنوع عاسا هلكا على يسكدقو وحوية وعصا ضعيفة يتكئ عليها كل عاجز يعني دليل قفك الدليل كعاجز سيقول بعه وكتكبه وإنا وجدنا آباءنا على أمه قال دي بقى أوران شرت إلهي كديري فيه سبحانه تاسيه صار نقني علي بان إن هذا الكاس وكلك الهوريني سوك بالبعين كاس مركز ويحك لا تعرف الحق بالرجال ولكن اعرف الحق تعرف أهله والمسكين ضعيف كاه حقه هكذا حبادي دون الركة ترى حقه مكانه بالسمية بالذي ويفر بدين لكن حق الجراء سيادو جراء تعد وافق صنيه عيدا كله أرنتا براروجينتيد aad bay muhiim u tahay waxay naga sixi karaysaa markaynu taa qaadano dhaqamo fara badan oo xagga guurka leh oo xagga beeca leh oo xagga wadadeg iyo wada noolaanshaha bulshada leh oo xagga magaha leh oo dhinac walba leh oo aan dhaqankaasi aan u waafaqsanayn shariicada marka diinta iyo daliilka loo eego qofka marka la yiraahdo diinta iyo daliilku ma ogolana suldaan iyo caaqil iyo islaam midku doonaya aade de waa inuu yiraahdo ama sidaas aad ka hadhnay waanu dhacdaa laakiin waa inaanu odhanin caado la gooyaa cara Allah leedahay bal daliilka kale uu sameeyeen caado la gooyaa cara Allah leedahay haba xumaatee weeye ilaahay wixii xuna la wado wadwadideedu ayuu ka xumaadaaye haysashadeeda ilaahay kama raaliha subhanahu wala yarda li ibadihi al-kufr wa karaha ilaykum al-kufra wal-fusuq wal-isyan ulaika hum ar-rashidun Allah subhanahu wa ta'ala